يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وهرين ومركب باش بعد عداء ومحمد وأحمد وعبدي نبضونا باش المدهان وياش دقنك سياسيين تا dhalinyarada ururka haweenka qaybaha kala duwan ee bulshada ee halkan ku sugan iyo bacda saxaafada afwan dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi rahmaani rahiim. ma rabo inaan hadal dheer halkan ka soo jeediyo maadaama gobolku inuu rabo howlo badan inuu ka hadlo. midda ugu horeysa deegaanka annaga xildhibaano ah iyo wasiiro ah waxaan ka imaanay hadda degmada beledweyne oo aan ku baxnay eladhaantii ama qayladii ama carashadii kasoo yeertay beesha baaracadde si wanaagsanna aan ula soo kulmay kuna soo guulaysanay safarkii halkaas aan ku tagnay waan ilaahay mahadiis aan kala soo hadalnay waxyaabo badan qaybaha kala duwan ee bulshada guud ahaan reer hiiraan aan la soo hadalnay gaar ahaan beesha baaracaddan ayana sidoo kale waxyaabihii tabanayeen aan kala soo hadalnay wax alla waxaan kasoo kala kalanay aan kasoo qabanay halkaasna waxaan kala soo laabanay is-afgarad iyo guul. midda deegaanka wuxuu leeyahay qaab ama procedure ama process qaab loo maro. annaga xildhibaanadii ah dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle ayuu ku cad yahay inta sharciyeedkii dowladaha hoose oo annaga aan sixinayna sidoo kale qaabkii loogu talagalay qaab ahaan ayay u martay madaxda sare ee hirshabelle sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha Mr. Caadiye. sidaa daraaddeed waxaan u sheegnay qaladka halkaas ka jiro in waqti xaadir deegaan uusan ka dhalan karin gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe sabab jira khaasatan gobolka hiiraan waa u sheegnay waana cadayna cod dheerna waa ku dhahnay buulbutaan ka sheegnay beledweynaan ka sheegnay jalalaqsigaan ka sheegnay meel walbaan ka sheegnay oo ay beesha degan tahay jowraan ka sheegnay mahadaayaan ka sheegnay hadda waa nagala maqli waaye annagana mas-uuliyiinta annagoo ah beeshana matalno wax aysan raalli ka ahayn ama aan suurtagal ahayn in lagu qasbo annagana waa ka dhiidinay waana ka diidnay haddana waa ka diidnay si fiican. waxaan rabaa marka dowladaha hoose ama deegaanka marka la dhisaayo waxaa loo baahan yahay dhammaan deegaanka inuu marka ugu horeyso horta uu nabad yahay. midda labaad in nabadgelyada la xasiliyo in dib u heshiisiin laga sameeyo guud ahaan gobolka. dib u heshiisiin weli lagama dhigin. dib u xoreen lagama sameeyo. waddanka cadowga haysta buulo burti iyo beledweyne iyo jalalaqsi iyo kulli meel laysu gudbi kara male waa ogtiin. magaalo u gudbi karta male tuulo u gudbi kartana male. markaasa waxaa la fiirsaday waxaa la yidhahda interest waa dulmi. annagana dadkii shacabka annaga ku matalna deegaankii waan ka diidnay. taas waa bii kama dhibcaan way. qodobka labaad waxaan raba inaan ka hadlo madaxda hirshabelle. saakin waxaan facebook social media aan ka arkaynay warqad lasoo dhigay mar kale waa duman kala hadlay uu soo dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle Caadiye oo guddi oo la dhisay leeyahay la magacaabay la dhisay guddiga madax bannaan oo ka kooban 9 xubnood waan qaar aan isnaqaan ay ku jiraan wasiir ma magacaabay xildhibaanada ku jiro hal xildhibaan oo aan saaxiibanahay misana wasiir ah ayaa ku jiro guddiga madax bannaan. haddana beesha guud ahaan waxba kuma leh. arrintaasna waa daadaansi kale waa dulmi kale. Mr. Caabo dadkaan aad dulminaysid horena waa kugu sheegnay ka joog walaalow nin saaxiibaan nahay nin wasiir ah tahay dulmiga aad wadid oo leedahay mar walba aniga shaqo ku malihi madaxda sare iga sarraysa waa la ii soo diray sameeyaa leedahay walaalow ka joog dadka aad dulminin beel dad ma dulmi kartid bulshada reer hiiraan ma dulmi kartid. arrinkaas aad hore deegaanka aad ugu dhawaaqday uma hirgalaayo midka hadda aad soo samaysana sidoo kale haddaba cabashada meel bay ka timid macnaha social media soo dhigtay waa dulmi waxaan loo qaado karen ka joog waana dulmi aad wadid mar walba aad kusoo celcelisad kaamana yeelino insha allahu dowla yidhaahdo waana kula dagaalamaynaa kaamana yeelino dulmigaas wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum.